بسم الله الرحمن الرحيم maanta oo ay taariikhdu tahay 6da bisha koowaad 22 ama 2022 waxaan rabaa inaan warbixin yar oo kooban ka dhiibo maamulka deegaanka Ceelasha iyo amniga anoo ah gudoomiyaha deegaanka Ceelasha gudoomiyaha deegaanka la foolay Ceelasha biyaha waxaan marka koowaad ammaan u soo jeedinaa amniga ciidanka booliska ee la joogo oo taliye ka yahay Axmed Yare shaqadii wanaagsaneyd ay nala qabteen iyo sidii ay noola howlgaleen iyo difaaciyada iyo maamulka magaalada markaan anaga ka shaqeynayno nadaafadda iyo siday noo garab istaageen iyo howlaha kale ee bulshadana ku diirsatay rondooyinka la sameynayo habeenkii tuugada la eryanayo wax walbo sida ay noola qabteen aadaan uga mahadcelinaynaa waxaan kaloo cambaareynayna taariikh 4 bishii koowaad 2022 idaacaddii gudoomiye maalmahan baraha bulshada waxaan ka arkaynay rag maamulkaada ka mid ah inay abni darro ay ka sheegeen deegaanka Ceelasha waliba gaar ahaan ay ku eedeeyeen booliiska maadaama gudoomiyihii deegaanka aad arrintaas maxaa ka jiro maxaad iska ogtay arrintaas been aan sal iyo raad lahayn waaye deegaanka anaa ka mas'uul ah gudoomiyaheeda aniga waaye taliyaha saldhigana daqiiqada isla shaqeynaa taliye saldhigoo ka fiican bay ima soo marin weligii waxa la sheegayna been waaye arrin aan sal iyo raad lahayn waaye ninka maamulkayga ka tirsanna haddii oo wax tabanayo wuxuu xaq u lahaa inuu aniga ii yimaado wuxuu tabanaya aniga i weydiiyo anigana aan sidii sharciga waafaqsan aan la maro annaga dad maamulaan nahay gobolaana xukumo ma aha inaan yuutubarada iyo meelahaas aan ka hadalna xaq uma lihin maamulaan nahay warkeena warqaduu ku yaallaa warqadeenana meel loo gudbiye leedahay taliyaha saldhiga wax dhaliila male ciddii dhaliil u jeedisan iyadaa dhaliila okay gudoomiye maalmahan anaga laftigeena waxaan soo gaarayaa in ay qolo ciyaal faacalid waagi hore la dhigi jiray ay soo baxeen ay tooriyo wataan ee shacabkii habeenkii ay dhibaateen ay ku dhibaateen waliba deegaanada qaar kamid ah ee moobeello iyo waxyaabo loo joogan ay ka dhacaan arrinkaas maxay idin kaga qorsheysan adiga oo gudoomiyaha deegaanka ama amnigaada horta waxaa la sheegaa anaga dhegtaan ka maqalnaa habeenkii ciidanaa noo ratiban oo roonde ah wax oo deegaankeena oo dhibaatadaas ka dhacday ma jirto laakiin waa jirtaa marmar in moobeel la dafo waayo waddada waxay isku xirtaa Soomaaliya inteeda kale iyo Muqdisho isku xirtaa wax walbaa maro nin tuuta qabaa maro noocuu raba ha ahaado nin ciidan dowladeeda maro tuug oo hubaysanaa maro ciidanka way ka fiijigan yihiin waxaas maasha allah taliyahay adiga si wada shaqeysaan taliyaha sida hadda arkaysid aan isula fadhin saacad walbo saas aan isula shaqeynaa saraakiil meesha nadaama jiro taliyaha waa taliye saldhig amniga guud siinka dheer ilaa intuu uu xukumaa taliyihii saldhigana wuu yahay saraakiilaa jirto shaqada uga hooseyso annagana maamulka qayb amniga ka tirsanaa jirto gudoomiye waaxeedyaa jiro maamulada waxaan isku xiran yahay conduction wax isku xiran waaye oo maamulka isla wada shaqeeya anna talada guud ee maamulka la weydiiya asna talada guud ee amniga la weydiiya haddaan labadeena isku xirnayna wax suuragalaya ma jiraan sanad gudoomiye